السلام عليكم. نين روسيانا ayaa wuxuu qoray buug uu lahaa oo kaga sheekay qisa cajiiba qisadaasi wuxuu yiri nin ayaa xaaskiisa xanuunsatay meel baadiya ay ku noolaayeen wuxuu soo saaray gaari dameer ama gaari ximaar ayuu soo saaray si uu magaalada u geeyo caafimaad iyo si uu ugu raadiyo dhaqaatiir fiican intuu jidka soo waday saantiisa aad buu xanuunsanaysay taah badan iyo waxa loo yaqaan waxa ka muuqday inuu xanuunku aad uga sii awood badanayo 40 sano wada noolaayeen awgeed yani nolol fiican may soo wada qaadan aadna ugu adkaa eriyadan uu ku adkeyn jiray kadib eriyo wuxuu bilaabay kalgacal iyo ka muuqato walaaltinimo oo ku leeyahay dhowrkaas sano 40 sano wada noolayn nolol fiican mayna wada qaadan eriyo fiican kuma oran jirin nolol wanaagsan kuma siinin maanta wada xanuunsanaysa aad baan uga xumahay ee nolosha noocaas ka soo gaarsiiyay wuxuu soo socdo hadalada wado magaaladii buu yimiday markuu isla xaaskiisii soo qaado oo dhakhtarka dhig waaba xaaskiisii meed dhimatay qabowdayna waqti badan ay ka soo wareegeen yani halkaas qisadaas waxayna tusaysaa eriyada wanaagsan hadaynu maanta oo dhan weyno oo dadkeena wanaagsan la wadaag weyno nolosha qurux badan leh fiican dadkeena wanaagsan aynu tusi weyno bari ka maalin waxaas way naga dhamaanayaan way naga tagayaan noloshu waxay macaantii intaad maanta haysato inaad wanaajisato si aanay bari kuugu noqonin xasro iyo waxaad ka murugoto waxna ka gaari karin erif fiican oo maanta tiraahdaa wuxuu ka fiican yahay $100 $10 bari qofka siiso marka uu tago nolol wanaagsan oo maanta qofka saaran waxay ka fiican tahay bari inaad ku warwasho maxaa nolol fiican u sameyn waayay aad baa santii salaam calaykum